waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay kulanka halkan aan isugu wada nimid annaga oo ka tashanayna ama isku gacan siinayna iska kaashanayna walaalaha iyaga dowrka ay qaadanayaan ee ku wajahan dhalinyarada la badbaadinayo dhaqankooda iyo diintooda oo runtii aan isleenahay waa kaalin mug leh oo muhiim leh oo aan ku ammaanayno walaalaha soo abaabulay arrintan shaqada wanaagsanna ka qabanaya waxaad ogtihiin dhammaantiin waxaan nahay ummad muslima gaar ahaan dadka Soomaaliyeed waa dad boqolkiiba boqol muslim ah sunni ah hiwaayadooda iyo hamigooda iyo horusocodkooda dhaqankooda iyo diinkooda inay ilaashadaan ku adag sida uu rabbi subxaanahu wa tacaala noo leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu ittaqullaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun ilaahay wuxuu la dardaarmayaa fariin adagna u dirayaa dhammaan dadka iimaanka leh cabsida ilaahay noloshooda inay ku maarayaan meel kastoo ay joogaan inay dhintaan ayagoo muslimiin ah inay noolaadaan ayagoo muslimiin ah inay ilaashadaan hiwaayada iimaaniga ah ee fitrada ah ilaahay uu ku abuuray ee kullu mawluudin yuuladu cala alfitra uu rabbi subxaanahu wa tacaala nabigeena calayhi salaatu wasalaam ku tilmaamayo qof kastoo muslim ah fitrada in lagu abuuray oo lagu dhalay waxa ugu weyn uu ilaashanayana ay tahay iimaankiisa oo uu rabbi subxaanahu wa tacaala la hortagayo maalinta qiyaamo adduunyo waa maanta maalin kooban sidaa daraaddeed waxaan aad iyo aad u soo dhoweynaynaa walaalaha barnaamijkan soo abaabulay ee shaqada ballaaran ka soo qabtay ee ujeedka iyo hamigoodana u yahay inay dhalinyarada u ilaaliyaan qurbahaas ku kortay ama ku barbaartay gaar ahaan dalkaas ay arrintu ka abaabuleen ay ka bilaabeen inay dhaqankooda iyo diintooda u ilaaliyaan oo aad garan kartaan inay tahay fariin dheer oo ku weyn dadka islaamka ah qalbiyadooda waxaan xusuusanahay dhammaanteen in qofka la dhisahay inay ka culus tahay in guryaha la dhiso wadannada inaan dib u dhisanno oo guryaha quruxsanno waa qiimo aan annagu u baahan nahay laakiin waxaa ka qiimo badan inaan dadka dhisno arrintani waxay door weyn ka qaadanaysaa sida walaalkay guddoomiye shaatax u tilmaamayey horumarka iyo tayeynta dhalinyarada isdhexgalka bulshada waxayna ku salaysan tahay qiimeyn annaga markaan qiimeyno in la dhiso insaan kaamil ah mutakaamil ah xayawi ah u adeeganayo noloshiisa adduunyada inuu ku maareeyo sida ilaahay ugu talagalay inuu u adeegsado aakhiradiisana uu camal falayo adduunyada qofka markuu joogo iimaanka muslimka ah adduunyada dowr uu ku leeyahay ilaahay ugu talagalay oo ah inaan camirno ilaahay adduunyada wuxuu noogu talagalay inaan adduunyada camirno isla markaasna ilaahay wuxuuna leeyahay suma jacalnaakum khalaa'ifa fi lardi linandura kayfa tacmaluun ardada waxaan idinkaga yeelnay khaliifiyaal waxaana fiirinaynaa sida aad ugu camal fashaan waxaan nala ka raba inaan ku camal falno waa inaan ardada camirno waa inaan nolosheenna waxa aan berita la tegayna sida ilaahay qur-aankiisu uu noogu tilmaamayo kullu nafsin bimaa kasabad rahiina naf waliba waxa ay kasbatay oo ay adduunyada ku shaqaysatay yaa berri ka horeeya adduunya masraca alaakhira adduunyada waa nolosha aakhiro abuurkii maanta la abuuranayay waayo adduunyada waxa aan runtii leenahay bacda aliimaan wa bacda alislaam waxa aan ilaashanaynana waxaa u qiimo badan ubadka waa hantida runta ah ee aan leenahay nolosheeda waxa nagu anfacayo waaye geeridayna kadibna waxaana anfacayo waa ubadka oo loo soo ducayn doonaad ogtihiin waxaan u baahannahay markaynan ubadkeenna ka fikirno adduunyadooda siday ula tacaamuli lahaayeen oo aan ugu diyaarin lahayn iyo aakhiradoodaba sidaan ugu diyaarin lahayn waxaan u baahannahay inaan ubadkeenna uga fikirno adduunyada inay nagu anfacaan maalin aan adduunyada intayna anfacayaan uga baahi badan nahay oo aakhirada ahna inay ubadkeenna na soo anfacaan taasina waxay ku dhalan karaysaa inaan ilaalinno dayaanadooda iyo dhaqankooda inaan ilaalinno waxaad wada xusuusantihiin dhammaantiin qof kasta oo adduunyada joogaahay markuu geeriyoodo camalkiisu waa go'ayaa
marka laga reebo waxa ilaahay uu ku tilmaamay nabigiisuna sifeeyey oo ah sadaqada jaariyada oo qofku sameeyo cilmiga uu ku intifaacayo lagu intifaacayo gadaashiisa uu dadka baro iyo waladun saalixun yadcu lah walad wanaagsan ilaahay yaqaana adduunyadiisa xaaraamta iska ilaaliya xalaasha ku dhaqma waxa ilaahay ka raaliyahay noloshiisa ku maareeya uga qayb qaata mujtamaciisa iyo hiwaayadiisa si uu u kor yeeli lahaa diinka ilaahay ubadkaas oo biri qiyaamaha markuu waalidkii ka hormarna usoo duceeye today waxaan aragnaa inay focuska saartay sida ay u dhisi lahayd insaan mutakaamil ah murshid ah oo runtii ku hanuunsan ama ku dhaqmaaya akhlaaqiyaadkii qiyamka ummadaha ay ku hormaraan ummadda waxaa la yidhaahdaa al-umamu biakhlaaqiyaatiha ummad kasta waxay ku hormartaa ama ku muuqataa ay sharafkeedu ku jiraa akhlaaqiyaadka ay xambaarsan tahay si aan marka aan uga qayb qaadanno waxaan soo dhaweynaynaa horreyntii haddaan nahay culammada soomaaliyeed aan ku hadlaya magacooda waxaan si dhow u soo dhaweynaynaa dowrka ay qaateen walaalahayn waxa ay ka shaqaynayaan oo aan u arkayno wax ilaahay ka raali yahay oo ah inay insaan alla ka cabsanayo adduunyadiisa iyo aakhiradiisa ilaashanayo inay dhistaan waxaanan la garab taagnaanaynaa taladeenna wacyigeenna iyo dowr kasta oo arrintaas aan garab ku siin karayno waxaan leenahay arrinta noocan oo kale ah falyatanafasi almutanaafisuun dadka ha u kala tartameen meesha masaajid laga dhisaayo oo madraso laga dhisaayo oo iskuul laga dhisaayo qiimaha noocaas oo kale ay leedahay in qofka bini'aadanka la dhiso oo la nooleeyo aad iyo aadaan usoo dhaweynaynaa today iyo kulanka maanta halkan ay ku qabatay waxaan u rajaynaynaa inay horumarkaas meelo badan looga daysado oo ay ajirkooda helaan annagana waxaan la shaqayn doonaa insha allahu tallaabooyinka wanaagsan oo aan uga mahad celinayno haadaa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu